saaxiibayaal dhammaantiin aad baan idin salaamayaa dadka ku xiran kanaalka Learn English with Hassan waxaan maanta idin soo helay application aan in muddo ah raadinayay run ahaantii application kan waxaan hore ugu soo sharxay kanaalka way arag academy balse maanta ayaan halkan si faahfaahsan ugu sharxi doonaa insha Allah waa application Allah ilahe aad iyo aad kaaga saacidi doono in aad horumariso luqadda Englishka qaybta vocabulary-ga waxa ku jiro run ahaantii 14 chapter walibana intaas oo ciwaan ba hoos imaato waxa kaaga sii daran xiisaha uu leeyahay marnaba kama caajisi doontid waxaan ka baqayaa in aad laba maalinba ku dhamayso maxaa yeelay mowduuc kale ayuu ku sii dhiibayaa aynu gudaha u galno yaana war idin ku sii daalinine Play Store-ka ayaa tagaysaa waxaadna ku qoraysaa Daily Words Vocabulary A to Z aniga waa ii soo degsan yahay hadda ayaana soo degsaday gudaha ayaana u galiynaa saaxiibayaal gudaha markii aan u galno sida halkan kaaga muuqatahay waxa uu ka kooban yahay 14 kaas chapter dadkii waxyaabihii dharka iyo muuqaalkoodii la xiriiray gurigii cunadii dukaamaysigii deegaankii transportigii waa gaadiidkii sidii loo raacayay waxbarashadii shaqadii caafimaadkii sportiskii farshaxankii baashaalkii iyo kuwa kale intaas sii dheer extra run ahaantii haddii mid ayaan ogolaynaa la yiraahdo waqtiga nagu dheeraanaya balse intii aan ka gaarno ayaan ku dadaali doonaa insha Allah waxaan ku horumaraynaa halkan education ayaan bal tijaabinayaa education markii aan ku dhufto education waxa ay ka kooban tahay school science maths geography so school ayaan ku dhufanayaa gudaha ayaan u galayaa afartan qaybood ayuu ka kooban yahay ciwaan waliba marka hore vocabulary-ga ayaad si buuxda u baranaysaa sharaxaadiisii iyadoo tusaale lagu gelinayo iyo iyadoo lagu dhawaaqayo si dhammaystiran baad u baranaysaa flashcards-kana waa dhammaystireen iyagana waa isla vocabulary-ga inta aad ku soo baratay laakiin markaan sawirna lama socdo dhawaaqna lama socdo adiga laga rabaa inay niyadaadu soo xasuusan kartaa lagu tijaabinaya test 1 iyo test 2 laba imtixaan ayaana laga qaadi doonaa markii oo lagu ogaanayo wixii aad soo baratay in aad xasuusato marka hore marka vocabulary-ga ayaan ku hormaraynaa waka halkan waxa kaaga muuqdo brush-kii marka brush waa ku dhufanaysaa si lagugu sharxo oo waa ku dhufanaysaa marka taabato waka calaamadda ayaa taabanaysaa brush waka brush ay leedahay halkaas macda marka taabato oo lagu dhawaaqay macnihiisa waa a tool made of crystals set in a handle and used for cleaning, smoothing or painting waka oo lagu sharxay halkan waka oo ku sii dhufanaysaa iyana waa akhrisanaysaa waana lagu dhawaaqayaa waa kana kursiga waa ku dhufanaysaa waka waa a separate seat for one person typically with a bag and four legs example we ordered a dining table and 4 chairs and we are given a delivery time of 2 weeks so waka jestadii oo ku dhufanaysaa oo lagu dhawaaqayaa oo lagu macnaynayaa tusaalena waa lagu gelinayaa sabuuradii saacadii computerkii miiskii tirtirihii eraserkii dhammaantood waa qalinkii highlighterkii calankii globe-kii ama qariiradii dhammaantood inta ay kugu wada qoran yihiin mid ayaad ugu dhufanaysaa dictionary-na waad isticmaalaysaa midkii af Soomaalihan aad u weyso dictionary ayaad gelinaysaa run ahaantii waxaan aaminsanahay inuu yahay the best inuu yahay aaminsanahay flashcards-ka hadii aan isla fiirino flashcards waa kan hadda kani muxuu yahay niyaddeedu waa inuu ku soo dhici karo inuu brush yahay haddii aad xasooyso halka info ku dhufo waa ka brush ay lagu leeyahay haddii aad ku dhufato samiicadana waa lagu dhawaaqayaa brush waxaan next aad si leedahay si kuwa xiga aad u guurtaa okay marka si aad gadaal ugu noqoto back ayaa taabanaysaa ama halka falaartaas ay taabanaysaa si aad uga baxdo testigii ayaan guda gelinaa marka test 1 maadaama aan vocabulary soo baranay halkan waxa aan ku haysanaa sawirkan
haddaba choose the right answer ayaa lagu yidhi dooro jawaabta saxda ah halkan ayaan ka soo saaran marka waa brush haye hadda kana waa boardkan dhufanaynaa haye waa kursiga waa chestada haye waa sabuuradda haye waa saacadii haye kani muxuu yahay marka computerkii adiga sidaa ayaad usii wadaysaa miiskii tirtirihii waxaa la dhahaa felt tip pen ayaa la yidhahdaa waa midka highlightka waa calankii waa caalamkii ama golobkii marka sidaa ayaad usii wadaysaa ilaa iskoor fiican aad ka gaartid wixii aad khalado hadda kan marka wax khaladid halkaabay hadda kale kana mid ka rabaan iska dooranaynaa ka midka saxda aan doortay laakiin mid ma khaldaynaa marka marka khaladno waxa halka nooga muuqanaysa ka fiiri marka wax khalado inta ay kugu soo qormaysaa hadda kan wax khalad aan dooranayaa waxaan dooranayaa halkan map aan noo yaala map ma dooranay disk aan dooranaa eeg waa ka saasa lagaga khaldaya runaantii waa application aad iyo aad ku saacidi doono waxaana filayaa tastiga labaad isna sawir ayaa lagu siinayaa xogtiisa ayaa soo saaraysaa halkan ka soo saar baa lagu dhahay kana ka soo saar question maaga inta lagu soo saaraya marka lagu soo saaro halkan xogaa lagu siinayaa intaan ka soo saar baa lagu leeyahay halkan buugan ku haysanaa halkan waa ruler masdaradii kan waa sisterkii marka waa kana waa kaas haye textbook inta ka soo saar ku jira lagu leeyahay waa kan sidaan filayo textbook waa kana sorry waa ka haye sisters maqasta halkan ka soo saar waa ka iyana haye ruler waa masdaradii ka soo saar soo adiga laga rabaa in aad sidan aad u soo saari kadid wax waliba marka waan ka soo baxayaa hadda waan isla fahanay baan rajaynayaa dhammaantood marka gibigood sidaas ayaad u wada qaadanaysaa marka xayisiis yar ayuu leeyahay xayisiiska waa 5 second oo kaliya sida halka kaaga muuqato cancel aad iska leedahay marka xayisiisku iga baxdo haddii internet uma baahno internet la'aan aad isticmaali kartaa internetka aad iska xiraysaa markii aad galayso marka xayisiin iyo isma arki doontiin insha Allah marka runaantii waa aad baan ula dhacay anigu mid kale tijaabinaynaa work ayaan tijaabinaynaa halkan waxa ku qoran work ayaan ku dhufanaynaa shaqada waxa hoos maado professions 1 iyo 2 office-kii media iyo computer-kii soo marka profession 1 kan ku dhufanayaa haddana vocabulary-geeda ayaan ka bilaabayaa marka ugu horeyso waa kana builder waa ka lagu sharxayaa waa ka ninkan u jeedaa ka kawaanku jooga waa ka carpenter ninka alwaaxda sameeyo chef cunno karintii waa ka cleaner nadiifintii dentist dhammaantood waa lagu wada sharxayaa waana lagu dhawaaqayaa eeg halkan dentist marka waa a person waa shakhsi who is qualified to examine inuu wuxuu ku soo takhasusay inuu baaro and treat una daweeyo people's teeth ilkaha dadka haye waa kana fireman-kii fisherman-kii waa ninkii kalluumaystihii dhammaantood waad arki kartaa wariyihii sida halkan kaaga muuqato halkan laguma soo koobi karo musician-kii optician-kii waa dhakhtarkii indhaha waa someone whose job involves testing people's sight and making or selling glasses and contact lenses indhaha dadka ayuu isna ku xayaa rinjiilihii waa ka sida kaaga muuqato plumber waa ka sida halka kaaga muuqato police-kii badmaaxii scientist-gii askarigii sportsman-kii harqaanlihii macallinkii kabalyeeriyadii marka run ahaantii waxaan dhihi karaa application-kan qofkii maalin waliba waqti ku bixiyo hadda marka tusaale tastigan ayaan isla gelaynaa hay ninkan muxuu yahay ma patchaba carpenter builder ayaan dhahay okay hay adigana igala shaqeey hay ninkan mid dooro aniga waxaan dooranayaa cleaner ma ahan
chef kii cunno kariyaha ma ahan waa ninka kawaanlaha butcher ayaa la yidhaahdaa ay carpenter cunno kariyihii hay cleaner dentist fireman fisherman aan ku dhuftay sorry gacanta iga dhacday fisherman waa kana kalluumaystihii ayaa ninkaana la iska rabaa haddana musician miya journalist miya waa ka ayay reporter wariyihii journalist ayay ninkaana haddana la iska rabaa gitaarka garaacaya waa musician ayna qofkaana la iska rabaa waa dhakhtarkii indhaha optician ay rinjilihii ay ninkaana la iska rabaa police miya scientist salary plumber policeman hay sailor ayaa lagu dhawaaqayaa haye kana la iska rabaa haddana waa scientist wakaas marka waa ku soo cesho kartaa retire waa dhigi kartaa darabtina kuwiska waa dhameyn kartaa maadaama aad ka wada jawaabtay su'aalihii marka commence à apprendre une langue et laisse-toi guider par Duolingo. Conçu par nos experts, le nouveau parcours de Duolingo t'aide à progresser à l'écrit et à l'oral pour mieux atteindre tes objectifs. Grâce à nos leçons courtes et interactives, tu peux t'entraîner où tu veux, quand tu veux. marka adigu internetka iska xir inta aadan u guda galin barnaamijka internet uma baahno internet la'aan ayuu shaqeynayaa halkan waxaan ku dhufanaynaa educationka ayaan galaynaa haddana school ayaan kasii galaynaa vocabulary ugu horeeyaan ku dhufanaynaa sorry hadaaya ayaan soo galnay sorry internetka inaan iska xiro waa markan English conversation. internetka ayaan iska xirayaa maadaama xaysiisku aad uu igu soo farabatay Get it today. waan ka baxayaa kan waxaan aadayaa markan health ama sports ayaan tegayaa maadaama anigu aan sportska aad u jeclahay soccer ayaan kusii dhufanayaa soccer means football waay maraykanka ayaa soccer dhahan learn complete halkan maxaa ku qoran armband waa calaamadii kabtankii sida halkaa kaaga muuqato ayay kaarkii roosihii iyo jaallihii haddii aad qof shaafto ama nin aad tackle aad ku samayso jaallahaaga iyo roosahaaga waa dafaysaa ayay halkan waxaa ku qoran saacad dabcan waxaan jeclahay inay tahay saacadda oo ciyaarta inay tahay jeclahay weli kama aqaani ayay kabihii waa kuwana calankii koornaha ayay koobkii free kick waa kana marka kubadda laalaba free kick waa ujeedaa golofskii goolaya u gashanayay waxaa ku xiga goolkii gool waalihii ama gool ilaaliyihii ayay linesman ay leedahay calan wadihii waaye locker roomkii penalty kick rigooradii waaye pitch waa garoonkii gudihiisii referee waa garsoorihii seats kuraastii waa run ahaantii banoonigii ciyaaritoydii sagsaamihii stadiumkii halkan waxaa noogu qoran taageerayaashii waa supporters iyo whistle seerigii ciyaarta lagu dhacdhacadinayo oo albitra uu yeerinayo tastigiisa ayaan ku dhufanaynaa aye kan waxaa waaye armband kabtanka calaamadda xushmadda hay kaararkii saacaddii kabtii hal xabo inaan khaldo maraba markaan toogta waxaan isku dayaa in aan gebigeed ka wada shaqeeyo insha allah free kick gloves goalkeeper linesman locker room penalty kick yes 13 waa haleelay so waan ka baxayaa isna baseballkan golfkan waxaana dha ciyaari jira waay adigu soo fiiri muuqaalka inuu sii dheeraado ma rabo marka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa saaxiibayaal
ورناتي application aad idinkaga saacidi doono wax waliba oo aad u baahan tahay ayaad ka heli kartaa oo dhanka vocabulary ka hormarina insha Allah